بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا أحمد إبراهيم جبريل أحمد تكتجاوي وحن halkan idinku soo bandhigayaa khiyaarta sharafta leh ee xiisaysayna wax ka bartaan cilmiga mobilada ama farsamada mobilada. Sidii ogtiinba waxa in badan dadku ay aad iyo aad u raadiyaan ama aan ahayn wax inta badan la helo in la helo cid wax ka barta ama wax ka dhigta cilmigan aynu ka hadlayno ee mobilada software iyo hardware. wixii hadda ka dambeeya insha Allah taala waxaan idinku talagalnay khiyaarta sharafta leh inaan bilowno maadooyin ama koorsiyo ku saabsan farsamada mobilada ama mobile repair. inta badan waxaad ogtihiin maanta dunida waxa aad u soo kordhaya amaba noqonaya nolosha koobaad waxa weeyaan waa mobile devices. sidaynu ka warhayno dunida aynu ku noolahay population-ka ku nool percentage-ka waa la yiraahdaa marka percentage ahaan la qiimeeyay qoys kasta inta ka isticmaasha waxa la yiraahdaa waa boqolkiiba 75% ayaa mobile device users. sida la ajligeed bulshadayna inaga Soomaaliyeed ama bulshada Ilaahay naga beeray ee Soomaaliyeed waxay isweydiinta mudan halkii ay hadaba kaga jirtaa isticmaalka aynu soo sheegnay waa ka qaybun runtii ayaguna dunida walow aynan ahayn dunida horumartay inaan la mid noqon karin oo aad iyo aad aynu uga dambayno xagga teknolojiyadda. haddana waxayna lagu tiriyaa siibagaygeena Soomaalida waxa lagu tiriyaa in ay yihiin dadka ugu isticmaalka badan marka laga hadlayo baraha bulshada iyagoo waqti dhaweyd ama 2008 7 ama wixii ka dambeeyayba gebigeeduba ay bilaabeen haddana waxay aad iyo aad uga badanayaan kuwii weligoodba soo isticmaali jiray. haddaba asxaabta qaaliga ah ama mudane iyo marweeye waxaan jecelahay in aan idinla wadaago dareen aniga khaas ii ah oo runtii waajibaan cid kale aniga igu waajibin laakiin aan anigu isa saaray waajibkaas oo ah wixii cilmi ah ee aan ku dhaamo anigoo ah expert in badan ku xeel dheer farsamadan kuna soo shaqeynay takhasusaadkeyguna ay yihiin qaar ka mid ICT iyo wixii lamid ah. waxaan jeclahay inaan idin soo bandhigo wixii aan idinku talagalay oo ay ka mid yihiin waxyaabaha maanta ugu muhiimsan inaga qabsada waxaan inala noole noloshiiba qaybta muhiimka ah kaga jira ee mobilka cilada ayaa ku dhacaya waxa dhacaya kuwa common ah maya waxa dhacaya kuwa expert u baahan intaba marka dadku laba ay iskugu jiraan aan yiraahdo waliba saddex ay noqonayaan asxaabta sharafta leh dadka u baahan inay wax ka bartaan oo ay wax uga bilaabmaan mobilkiisa iyo wixii farsamaha ama cilada ee ku yimaada hadhow in wax aqoon ah u yeesho balse hadafkiisu aanay ahayn wax intaa ka dambeeya oo dan uu kaliya aan jirin. qolada labaad waa qolo jecel inay cilmi ahaan u bartaan oo cilmiga sadugtiinba jaamacadaha dadku ay jaamacadaha wax lagu soo bartaa ama cilmiyada la soo diyaariya ardayda wax soo barataa waxay isugu jiraan in cilmiga sideeda u barata iyo in wehelaho ujeedadoodu ay tahay in kaliya jaamacaddu hebel dhigtaa ama ka soo baxaa ama dadka u dhanbaa dhigtaa adiguna dhigo waxyaabo iska caynkaas runtii. haddaan uga soconno hadafka iyo ujeedada aynu u soo qaadanay inaynu saddex qolo u kala qaadno waxay tahay qolada saddexaad oo ayaduna ah tan hadda
sheegayo ta ugu muhiimsana waxay ayagu jecel yihiin inay cilmiga bartaan kuna shaqaystaan ciddii ay uga faa'iideyn karayaanna uga faa'iideeyaan lafahoogana uga faa'iidaystaan intaan markaa la hadlaynaana ayaan anigu diiradda saarayana waxa weeye ninka doonaya inuu farsamadan cilmi ahaan u barto kuna shaqaysto si fududna runtii uu noloshiisa ugu maareeyo okay haddii aynu wax ka taataabano horta moobilada runtii laba qaybood baa loo kala qaadaa farsamadooda qayb waa wax program ama software la xidhiidha qaybna waa hardware oo waa furfurka iyo wixii la halmaala okay hadda markaa kooraskeenan inagu maanta aan ugu talagalay inaan pagekaygan ka bixiyo oo introductionkiisii hadda aynu ku guda jirraba wuxuu noqonayaa software course level 1 waxaa jira level 2 baa jira ilaa level 3 marka kooraskani wuxuu ku saabsan yahay waa softwareka waxaanu sheegi doonaa insha allahu markaynu casharada bilowno xilliyada iyo waqtiyada aan ugu talagalay inay qaadato marka koowaad waxaynu diiradda saaraynaa waxa weeye waa software course level 1 wey waxaa lagaaga baahan yahay haddii aad tahay qof jecel in uu cilmigan barto ama pagekan ku xidhnaado hal qodob ayaa lagaaga baahan yahay marka laga reebo wixii kugu xidhi lahaa ama qaabkaad ugu xidhmayso oo ah inaad pagekan subscribe siiso like iyo share and comment waxa kugu xigaa waxaa weeye qofka aan wax u dhigaynaa ama aan wax u sharxaynaa wuxuu noqon karaa keliya qof academic level ah waxaan ka wadaa academic level heer waxbarasho oo ay ugu hooseyso dugsi sare inuu qofku leeyahay khaasatan uu wax ka fahmi karo luqadda ingiliishka oo runtii tooliska iyo softwareskan aan isticmaalayna iyo website-yadan kala soo degayno ku qoran waayo dee soomaali kuma qoraa dan inagu soomaali ku sharxayna iminka dee qofka loo baahan yahay inuu waxaan ku shaqeeya wuxuu la falgelayaa bulsho dunida ku nool oo English ku hadasha waa sababtaynu u leenahay in qofku wax ka yaqaano requirement-ka aynu ugu darayno waa sababta darteed wey waa in qofku Englishka fahmi kara akhrina kara loogama baahna inuu ku hadli karo loogama baahna inuu waxyaabo badan samayn karo kale oo skillska language-ka ah looga baahan yahay keliya waa inuu akhrin karo fahmina kara waxa meesha ku qoran qodobkaas ayaa looga baahan yahay waxaa kaloo la socodsiinayaa dadkaan ayagu ahayn ardayda ama aan ayagu dee ujeeddo kale ka lahayn fadlan waxaan kugu wargelinaynaa inaanad adiga haddii aadan u baahnayn walaalka ayaa u baahan waxaad nagala qayb qaadataa sidii aad nagula baahin lahayd fursaddan qaaliga ah ee walaalka moogyahay haddii aad adigu daawade ama dhegaystay og aanad u baahnayn waxaa jira walaalkaa u baahan laakiin aanan jaaniskan heli karin ilaa aad adigu share siiso ama aad subscribe siiso si ay ula socdaan dadka adigana friendska kulaha ama kugu jira pageskaga sida Facebook oo kale okay intaa waxaan ku darayaa waxa weeye waa iska hordhac kolley maanta waxaan ugu talagalay inaan ogeysiin keliya ka bixiyo oo aan idinla socodsiiyo wax ka badh aan hordhac ahaan u dulmaro waxa aynu doonayna inaan ku daafuro kooraskan aynu shaacinay iyo waxyaabaha looga baahanya okay haddii aan dul maro koorasyadan iyo say ku suura geli karta in online ahaan aan ku bixino waxaan ka wadaa online qofka oo aan tegin iskuul aan processkii ama qaabkii waxbarashadu ay lahayd ee school training ku lahaa aan marin siday ku suura gelaysaa
in qofku isaga oo mobilkiisa ama laptopkiisa isticmaalaya cilmi inuu kula socdo sida classka oo kale ama joogto ah taas weeye markaa aan wax ka taabanaya marka waxaynu ognahay horta qof walba maanta mobil buu haystaa ama computer buu hayaa internetku